السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. kusoo dhawaada sanad guuradii tobanaad ee horumarinta dhalinyarta iyo hal-doorka Soomaaliyeed. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Sayyid Ahmed Hassan. Welcome to the 10th Annual Unity Gala. I've been a Minnesota resident for the last 10 years, and I currently work for the Minneapolis Adult Education. I'm the Community Outreach Coordinator, and I'll be your co-host tonight. We are thrilled to have you here, and this time I'm going to welcome my co-host, Fatuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody. I'm glad to see familiar faces, new faces. My name is Faduma Ibrahim. I have been a community organizer for the last 15 years. I'm a mother, a business owner, and I am looking forward to meeting a lot of you tonight. I will be co-hosting with Siad tonight. Looking forward to your energy. waxaa gobolka Minnesota lagu qabtay munaasabad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ururada bulshada, ganacsato, aqoon-yahano, marti sharaf kale oo ka kala yimid gobolada dalka Mareykanka, Canada, Europe, caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxaana marti sharafkaasi ka mid ahayd Congresswoman Ilhaan Cumar. munaasabadani ayaa lagu xusay sanad guuradii tobanaad ee habeenka horumarinta dhalinyarada iyo hal-doorka Soomaalida, iyadoo munaasabadaasi uu soo qaban qaabiyay Aadan Ogaas Axmed, isagoo ugu horreyn u mahadceliyay dadka munaasabada ka soo qayb galay, wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in la muujiyo sharafta iyo wanaagga hal-doorka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Cabdi Bila Cabdi oo bulshada Soomaaliyeed magac ku leh ayaa sheegay in ay muhiim tahay. aad iyo aad bay farxad noogu tahay ka soo qaybgalka xafladan quruxda badan ee ugaasku isugu keentuuray sanad walbana inoo dhigo, isagoo bulshadeena ku dhiiri gelinaya, dadka waxtarka wax ugu qabanaya. aad bay farxad noogu tahay. idinkuna ka soo qaybgalayaasha iyo dadka jooga title-kiina ku salaaman tihiin. sanadkan waxaa dadkii la abaalmariyay ka mid ahaa hooyooyinka kale ah Maama Xaliima Muumin iyo Maama Dulmar Carays oo Quraanka Kariimka dhameeyay iyagoo ah waxaana la guddoonsiiyay abaalmarin iyo lacag. farxad weyn bay noo tahay inaan intan oo waji oo qurux badan oo dadkeena magaaladeena aan isugu nimaadno, xaflad la isugu mahadcelinayo dadkii wax fiican sameeyay, taasoo hadda ay arrintani laga yaabay inay dhammaanteen tirtirsa inoo wada noqoto. waxaan halkan ku haynaa laba maamo oo waaweyn, ilaahay cimrigooda iyo caafimaadkooda ha u sii badiyo, oo hooyooyina, ayeeyooyina, oo magaaladeena intay quraanka ku bilaabeen ku dhameeyay maalmood. imise sano ku dhameynaya quraanka intaynu Minnesota joognay ka yar for sure. so sidaas ma marka waxaan rabaa insha Allah taala inaan dhiiri gelino dadkeena dhan, aan idhaahno there is no age limitation. access ku meel walba wuu yaala. at the end of the day waxaynu nahay dad muslimiina, waa inaad diintaada wax fiican ka taqaano, waa inaad quraankaaga wax fiican ka taqaano. ugu yaraan faatixada aad ku tukanayso waa inay line up ku ahaataa. sida aan u jecelnahay uniformkeena iyo dharkeena inaan hagaajino, waa inuu quraankeenuna maasha Allah la yiraahdo. hadda adduunka dhan waa inoo qirsan yahay. waxa leeyahay gabadh Soomaaliya hadda aragto, nin Soomaali, wiil Soomaali hadda aragto oo ay quraanka u akhriyaan, maasha Allah waa adduunka ay soo dhex qaaday Soomaaliya hadda oo meel walba la wada tuban yahay. marka carabtii aan inagu ku tuhmaynay inay naga yaqaanaan, waxay leeyihiin ruux Soomaaliya halkan jooga na tukiye ku leeyihiin adiga ku hormarinayaan marka hore, sababtoo idinka naga yaqaan quraanka. waana waxa la inaga arkay alxamdulillah. marka waxaan rabaa inaan u yeedho macallinkii gabdhahaas, maamooyinkaas, ayeeyooyinkaas quraanka baray, Sheekh Dayib iyo labada gabdhoodba oo aan taqabal siino
hadiyad aan u dhiibno. waxaan u mahadcelinayaa dadkii soo qaban qaabiyey hawshan aad iyo aad bay muhiim u tahay in dadka bulshada wax ku soo kordhiyey in maaragtay la abaalmariyo oo magacooda la sheego si ay inta kalena ay ugu daysadaan insha allahu tacaala hooyooyinka maanta la abaalmarinayo maama xaliimo muumin iyo maama dulmar carays qur'aanka way dhameeyeen waliba laba koor bay dhameeyeen hal mar ma xataa ma sha Allah waa maamooyin ayeeyooyin aweeye oo carruurtoodii ay carruuro dhaleen masaajidka irshaad ku yaala Ironbury bay qur'aanka ku bilaabeen ku dhameeyeen marka maamooyinkaas ilaahay ha barakeeyo ilaahay maaragtay in badan oo iyagoo kale aan hayno maaragtay badiyo insha Allah tacaala waxaan ku dhiirinaynaa qof walba oo halkaan fadhiya inuu quraanka uu baran karo waxaa sidoo kale abaalmarin la guddoonsiiyey 5 hooyo kuwaasoo ganacsigooda uu najaxay 18 sano ee ganacsigooda uu jiray isla markaana ah ganacsato tan iyo markii ay ganacsiga bilaabeen in ay isgarab istaagaan mooyee aan marnaba iskhilaafin taasoo ah mid aan ku badnayn ganacsiyada Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo caawa unity gala walaalkay aadam ugaas uu sanadkii 10aad uu qabanayo waa markii saddexaad oo ka soo qayb galo marka waa arin aad iyo aad loogu baahan yahay baraarujinteedana ay ku fiican tahay dadka u qalmo inay ka soo qayb galaan ama uu ku casuumo business han noqdo ganacsi han noqdo aan dadka education han noqdaano alxamdulillah sportiga han noqdo waa nin isku hayo ummadda dhan oo mahadsan yahay anoo ku hadlay magacayga iyo magaca walaalkay Cabdiqani insha Allah waxaan rabnaa inaan halkan ku guddoonsiino maamooyinkaas 2006 ilaa hadda shirkada ahaa oo aan weligood dhibaato ka dhex marin oo aan maqaayadoodana wax badan aan jabaati badan ka cunnay jaalida Soomaalida ku nool gobolka Minnesota aadna u yaqaaniin marka waxaan leeyahay soo dhawaada maamooyin sida sharafta leh iyo karaamada leh aad intaas business sula wadeen oo wax dhibaato idin dhex marin oo dacwooyin idin gelin aad ku horumarteen oo aad jaalidiinana aad ugu adeegteen waa ku mahadsantihiin maan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda tan aadan ugaas runtii aad iyo aad inuu maaragtay haldoorka Soomaaliyeed ee state of Minnesota isu keeno arrin aad iyo aad waxa la qadaroon leh waxaan runtii aad iyo aad aan maaragtay ugu faraxsanahay inaan gabdhaha maanta aan guddoonsiinayo ku darso gabdhaha waa leed hameenkii xataa dadka magaalada ku soo daaha saacadaha dambe gabdhaha kaliya casho laga heli karo way Sheekh Tawakkal oo kamid ah culimada Soomaalida Minnesota oo munaasabada ka hadlay ayaa bulshada ku booriyay muhiimadda ay leedahay isku duubnida Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisu ku tilmaamayaa tilmaanta iyo calaamadda meesha noogu qoran ee unity-ga wada jirka dadku inay ku midoobaan wax walba oo horumarka ah bulshada ah islaamku meesha ugu sarreeyay u gaarsiiyay wax walba oo kala taga oo burbur ahna community-gu dhibaatadiisa iyo dariiqa inuu ka leexday keenaysaa saadaradeed bini'aadanku waxa ugu weyn ee cibaadaadka Ilaahay loogu dhawaanayo waxa ugu weyn inuu ka shaqeeyo laba shay in waxa wanaagsan qofka uu ka shaqeynayana uu garab istaago in qalbigiisuna uu noqdo qalbi wanaagsan maxaa yeelay maalinka aakhira la tago إلهي حولنا ما فيرنا يا أولادنا ما يضدك واحد وهايستي دقالو وهايست ما فيرنا إلا من أتى الله بقلب سليم روح قلبي سليم لي ماذا قلبي وناكسن لي ماذا كمرا حمانته حقدك حسدك وحجروين كقلبك كل جونا بلا آدم كمان أنت وحوي وقتك إنه جوجنو منظرك يا موقالك إنه كشقينا وقفك بلا آدم كوا جركي ساسك مشغول يا ورادين يا وهجاجين يا لكن أصل وحواه qofka meesha ugu sarreeyay ee qofku uu hagaagayo jirkiisa oo dhan uu hagaagayo bulshana ay hagaagayso qofku inuu qalbigiisa ka shaqeeyo